kula daidaya aadan ku danaynaya saaxiibayaal waxaan maanta idin haynaa in wadna barnaamijkeeni maxaa cusub waxaan maanta ku soo qaadanaynaa maxaa ka cusub jacaylka Maryam Salmuuse iyo Xamdi Bilan oo muddadii ugu dambeysay la hadalhayay tan iyo sanadkan bilowga ah iyo intii ka horeysayba Mursal iyo Xamdi Bilan iyo istaba wareegaysay balse maxaad ka ogtahay inuu manhaj cusub furay Mursal kaasi oo ku dhigay jacaylka Xamdi Bilan maxaase ka ogtahay inay Hodan Cabdiraxmaan sidoo kale iyaduna dalbatay furiin markii ay aragtay inay Xamdi iyo Mursal isku sii dhawaanayaan maxaase ka ogtahay in Xamdi Bilan nin Turkiga ku guursaday wadanka Turkiga gudihiisa warbixinahan oo dhameystiran idinna saaxiibe marka hore waxaan niga codsanayaa inaad YouTube-keena Cabdalla Deeqsi subscribe dhahdaan soo kale video-gan si share gareysaan oo si leegdan ku caawisan saaxiibayaal soo kale waxaan leenahay walaalayaal macaan Facebook page ay ku qoran tahay Cabdalla Xuseen waa magacayga dhabta saaxiib isagana follow soo dhee 10 kuna follow wax yar ayaa nooga hadhan isagana followta saaxiib nagu garab istaag aad iyo aad bad mahadsantiin maxaa saaxiib ka ogtahay inay Mursal Muuse oo ahaa saygii hore qalraseeyay Hodan Cabdiraxmaan haw maantana jilay jacayl cusub ah Xamdi Bilan maxaa ka ogtahay inay Xamdi Bilan jacaylkaasi aqbashay sidoo kale Xamdi Bilan toddobaadkii dhaweeyay waxaad ogaydeen in lagu xamanayay inay guursatay nin u dhashay wadanka Turkiga ninkaasi oo كنول مقالة إسطنبول عاصمة تركيا حمد بيلان waxay ka baxday bishii Janaay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyadoo uga duushay dhinaca iyo magaalada Istanbul ee caasimada dalka Turkiga caasimada labaad ee Turkiga ilaahdee waxa halka ku soo dhaweeyay dad aad u tiro badan kuwaasi oo ku jiray YouTuber-ka caanka ee aan ilaahdee Abu Wangesi ayaa markaa xantiisu hay aad u soo shacbaxdo lagu xamaray balse ugu dambeyn wiil Turkiga ayaa iyadoo la fadhida amba gaarigiisa si fiican ugu la baashaalaysa ayay soo dhigtay baraha bulshada sidoo ogtiinba social media amba baraha bulshada waa meesha qura aadka loo hadlayo balse Xamdi Bilan ugu dambeyn waxay Mursal soo qaaday hees jacaylaha cusub ila adalofkana yaqaan waan dheer jacaylada irbay kam tareenkayga dushaa inkastoo heestan ahayd heestan Xamdi Bilan qaadin oo hore loo qaaday soo kalena aysan qaadinba qof dumar ah haddana dad badan ayaa arkay inay Mursal ula jeedo in isla video-gan yar soo duubtay ay soo dhigtay barta Instagram-ka ku leedahay Xamdi Bilan sidaas darteed dad badan ayaa soo laba kacleeyay jacaylkii sida gaara bildaanka waqtiga badan loo hadalhayay ee Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan kaasi oo dadka u noqotay suuqin weyn wadada ogeeyeen bilii la soo dhaafay Xamdi Bilan iyo Mursal ayuu dhulku ahaa balse Hodan Cabdiraxmaan arinta iyadoo ka hadlaysa ayay waxay sheegtay in waxba ka jirin balse mar labaad ayaa la soo cusboonaysay inuu Mursal oo furay manhaj cusub oo waxbarashada sidii waxbarashada kale ugu dhigayo jacaylka Xamdi Bilan Mursal waxa lagu tilmaamaa amba lagu eedeeyay inuu yahay nin kolba gabadha oo arka iska jeclaada sidoo kalena dhiga manhaj cusub oo jacayl oo kolbati bilicda ee gabadha oo arko haw u dhigo manhaj cusub oo jacayl ah taasina ay ku qaadato muddo badan inuu soo gabagabeeyo oo saad ogeedeen wuxuu waqtigii dambe haw aroos ku ahaa amba waqti fiican la qaadanayay Hodan Cabdiraxmaan oo ah naag haysata amba gabadh haysata baasaboor ajnabi ah sidoo kale wuxuu ka soo horeysay oo halka ka arkaysaan qadar silimo oo ahayd lamaanihiisii koowaad oo nolosha kula midoobay waana u jeedaa sida quruxda badan ay isku dhaganaayeen waqti iyada ahayd hayaa wax kastaba laakiin waxa ka horeeyo ka weyn calafka inkastoo oo haddana hawroga danac badan yahay balse Hodan Cabdiraxmaan waxay u haysaa maanta ilmo qadar silibana waxay u haysaa ilmo oo waa labo haween ah oo soo wala maray balse Xamdi Bilan xakayna ka soo gashay Xamdi Bilan waxa soo kala iyadana hay noqotay 7 shaadley sida ay dad badan sheegayaan inkastoo aan ku dambeeyay anigu hanan gacantana ku hay ila daaf lama garanin in maalintu jacayl gabagabooda qof waliba wuxuu sagaxsaday baa loo gundhawayaa Hodan Cabdiraxmaan wixii ay gashay baa laga gurayaa ruuxantii ereyada marka soo dhageysateen waad maqlayseen sida ay uga jawaabaysay ama sida ay u sheegaysay inay jacaylkoodii gabagaboobay balse si kastaba haatee Mursal xageebo ku dambeyn doona ama Xamdi jacaylka la jidi doona mise gabadhiisa baasaboorka American ka haysata ayuu iska haysan doona maadaama oo la faray qaxootigii ka soo gali jiray wadanka Mareykanka qaaradaha Afrika iyo sidoo kale
wadamo badan oo muslimiin oo la mamnuucay markii hore kuwaasoo dib loo furay. mursal wuxuu haweysanayay inuu ka caweeyo magaalooyinka Washington DC iyo magaalooyin lamid ah oo ku yaala wadamada Amerika, balse waqti xaadirkan waxa arintiisi fashilinaya dabarjab ku ah wararkan cusub ee la sheegayo. wararkan laakiin waxaan isweydiinta mudan ayaa waxay tahay in ku soo qaadanayno barnaamijkeena maxaa cusub ma warar cusub oo la soo cusboonaysiinaya marka la leeyahay xamdig mar waxay guursanaysaa nin Turkish ah, marka qol la leeyahay waxay guursanaysaa isla sayga Hodan Cabdiraxmaan ee Mursal Muuse. arintani adigaaga daawanaya maxay kula wajibay gashadeen hawdhan hadhowya maragii maarayno saaxiib yaasad kaliimka ku soo daawateen waa Hodan Cabdiraxmaan iyo Qadra Silimo oo maqaayad ka wada caweynaya sidoo kalena is cafiyay markii ay ku guul dareysteen labadooduba jacaylkii hay muddo badan isku qabsanayeen ee Mursal Muuse, kaasi oo hay gundhig u noqotay amba hay kala hoos baxday Xamdi Bilan oo ah fanaanad inta badan iyadiyo makarafoonku hay saaxiib yihiin. sidoo kale mar hay YouTube duubayso mar hay fanka ku jirtaba makarafoonki Xamdi Bilan waa laba mataanood oo wada dhashay. sidoo kale Hodan Cabdiraxmaan waa gabadh ganacsataa oo iyaduna ana ka liidan Xamdi oo waxay joogtaa wadamada Amerika mid kamid ah uguna dhaqaalaha badan adduunka waa isla wadanka Mareykanka halkaas oo isiisto passport Americana iyo heli kara gabadh passport American san harebe idinku soo sheegnay aan ku soo ogaanay barnaamijkeenan maxaa cusub. mursal sanadkan aan ku jirno 2022 wuxuu filanayay inuu ka dego magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka, balse Xamdi iyo wixiiba alfaha u laabtay waa siday dadku hadalka u dhigeen. anigu inkastoonan waxyaalahaas oo badahaas oo dhan ku jirin haddii xataa aan wax qalad ku dareena waan ka saarayaa saaxiibayaal. waxaad igala soo xiriirtaan Instagram-keena Cabdalla Deeqsi kaasi oo qof kasti oo codsi wada amba cabasho soo gudbiya han ka aqbalo. saaxiibayaal YouTube-keenana subscribe saara, sidoo kale page-keena Cabdalla Xuseen follow soo dheh. inta kasto ay taageerta iyo intaan taageerin ba aad iyo aad bad u mahadsantiin saaxiibayaal. balse arinteena aan ku soo soconayo barnaamijkeena maxaa cusub waxa kale soo bandhigtay inay Xamdi Bilan nin kale oo Turkiga lagu hadlayay sidoo kale abwaan gees lagu hadlayay tolo Xamdi badana waa imise qof adigaaga daawanaya muuqaalka gabadh hadaad aragto 3 wiil iyo wax ka badan lagu hadlayo oo saddexda waxay sheegayaan waa wax dhab ah oo barnaamijyo ka soo diyaarinaya YouTuberada qaarkood. maxaad is oran lahayd ma rumaysan lahayd mise waad been lahayd? runaantii markaan dhinacyo badan ka fiiriyay dhinacan u qaadaba waan garan lahayd, dhinacan u qaadaba Xamdi gabadhii Xamdi ahayd waan garan lahayd, sidoo kale wiilkii Mursal ahaa dhinacan u qaada ayaan garan lahayd. ma YouTuberleyda ayaa views raasanaya oo viewsku meel xun ka galay mise Mursal iyo Xamdi waa noqday diyaaradii daba dheer oo iska daba wareegaya kolba mid gabadh dheer oo arkana iyo kolba wiilka aragtana qol iyo qol kala daba laabaya. taayidinka ayaa commentiga noogu soo sheegi doona saaxiibayaal. anuu ka hor dhici maayo oo barnaamijkeena maxaa cusub wuxuu ka hadlayo kaliya waa hadalaynta bulshada iyo wax maanta cusub kaasi oo gaarsiinayo macaamiishiisa amba dadka ku xidhan page-keena iyo barteena YouTube. labadaasiba commentigana marka la inoogu soo qorana si qurux badan ayaan uga soo jawaabnaa. isla barnaamij labaad ayaan ka diyaarnay commentiga sida ku soo dhaxa waxaad idinka iniga baxay halkaasi Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Baasina oo kala tagi kara iyaga oo sidii isku dhigana, balse taa bedelkeeda waxa soo xasanaysa Qadra Silimo iyo Mursal xakay kala mareen, Qamar Soogaan iyo Badaraysan xakay kala mareen, Rasmi Raasi iyo Farxaan Yar xakay kala dambeeyeen. arrimaha markaad u fiirsato waxaad oranaysaa jacaylka Soomaalida wuxuu noqday boombalada lagu ciyaaray. waan ku jeclahay ana ka daran ugu dambeeyntana ismaba garanayna tiiba matid iyo kiiba matid oo waxay noqonaysaa fiig in lagu kala tago habeenada yar ugu horeeya xumadii xaraaradana in la isticmaalo oo makh iyo shumiska la iskala daalo. balse arintaas oo dhan waxa ka fiicnaan lahayd haddaan xataa qaybteena talada ah ee barnaamijkeena maxaa cusub hawleeyahay han ugu darno war walaalayaal Soomaaliyay sidan iska daaya waxaad noqotaan dad isku dhagan isku faraxsan isku wanaagsan isku qalbi furan khiyaanadana iska daaya marka hore. balse haddii aad taa bedelkeeda diidi weydaan inkastoo uu yahay furninku wax aw rabbi soo dejiyay si sharaf loo kala taga oo baraha bulshada isku fadaxaynaysan hebel baa sameeyay hebel sameeyay jirdi iyo fadhiya laag bigala daaleedan iyo xabsi maan ku xidhay arrimahana iska daaya wax idin fiican maaha. hadduu caalafkiini kala dhamaaday amba isqaadi kara weydeen oo wadooyinka kala marteen inta isku daaya ayaan idinku leenahay oo arintaas waa tala oo siinayo barnaamijkeena maxaa cusub
oo ka soo baxda YouTube-keena Cabdalla Deeqsi iyo page-keena Cabdalla Xuseen. Anigu waxaan ahay Cabdalla Xuseen, naanaysteeduna waa Cabdalla Deeqsi. saaxiibayaal markaas saas ayaan isku baranaynaa. YouTube-keena waxaad I love you.